بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaad arday waxaan qaadanaynaa cashirkeena shanaad oo ku saabsan maadada epidemiology-ga cashirkeena maanta insha Allah wuxuu quseeyaa wax loo yaqaan descriptive epidemiology waxa loo kala saari jiray qayb analytical ah iyo qayb descriptive ah marka maanta diiradda waxa saareynaa biidhnillah wax loo yaqaan descriptive epidemiology-ga waxa la dhahayaa baranayna insha Allah hadda oo imaano learn objectives-ka cashirka hadafta oo baranayno waxa kamid ah dhamaadka cashirka ardayga waxa laga filaa inuu qeexi karo maxaa loo yaqaanaa descriptive epidemiology maxaa la dhahaa inuu fahmi karo labo waxa fahmaynaa waxa loo yaqaanaa identify the most important time place and person variables waxa fahmaynaa waxa loo yaqaano waqtiga iyo meesha cudurku ka dhacayo iyo dadku ku dhacayo kala duwanaanshiyahooda anagoo u fiirinayno descriptive epidemiology-ga descriptive dabcan saddex meel ayuu xoog saari jiray waqtiga meesha cudurku ka dhacayo waqtigu dhacayo iyo wax loo yaqaan dadku ku dhacayo qodobka saddexaad waxa ku baranaynaa cross-sectional study oo cashirka xigo qayb ahaan noqon doono dakor marna qeexitaanka maxaa la dhahaa descriptive epidemiology maxaa loo qeexaa waxa loo yaqaan one basic types of epidemiology qaybihiisa nooc kamid ah waaye inta badan wuxuu quseeyaa describing the frequency wuxuu quseeyaa soo noqoshada cudurka distribution of disease faafitaanka cudurka iyo other health related conditions iyo xaaladaha kale oo caafimaadka quseeya annagoo ka fiirinayna waqtiga iyo meesha iyo dadka iyo qofka another branch of epidemiology qaybta kale ee epidemiology uu leeyahay waxa loo yaqaanaa ama waxay quseysaa cause and determinant of disease cudurka maxaa sababa cudurka maxaa go'aamiyo waxaan loo yaqaanaa analytical epidemiology lagu magacaabaa epidemiology-ga badanaa wuxuu isweydiiyaa markay ka sheekeynayna analyticalka how and why cudurkan suu ku dhacay sababtoo dhacayna maxay tahay waxaa jira marka major variables in descriptive epidemiology-ga markay ka sheekeynayna variableska ama qaybaha uu kala duwan yahay waxyaabaha isbedelayo markaan fiirino descriptive epidemiology-ga waxaa kamid ah the major variables in descriptive epidemiology can be classified waxaa loo qaybiyaa under the heading person place and time waxaa loo kala saaraa qofkii meeshii iyo waqtigii to describe the occurrence of disease fully saa u fahano dhicitaanka cudurka si dhammaystiran the following questions must be answered waa in laga jawaabo su-aalahan soo socdo who is affected oo laga wada personkii cudurkii ku dhacay where cudurka intuu ka dhacay oo placekii ah iyo wax loo yaqaan weyn cudurka goormo dhacay oo timekii ah marka saddex su'aal la fahano waxaan noo fududaanaya marka in cudurkii qeexi karno gaar ahaan dadku ku dhacay meeshuu ka dhacay iyo xilligu dhacay intaba si fudud u fahmi karno qodobadaas marka mid u qaada dhigayna hadda ka hormarno personka waxa loo yaqaan people can be categorized with respect to many variables dadka laftooda ileen awal waxa soo qaybina saddex waaweyn descriptive-ka oo qofkii iyo waqtigii iyo meeshuu ka dhici lahayd ahayd marka hadda who bilaabayna personka laftiisa wuxuu noqonaa qaybo wuxuu yeelan doonaa kala duwan in epidemiology study it's the common to specify three characteristics of person epidemiology markuu qofka qeexayo ama qofka waxyaabaha isbedelayo oo dadka dhexdooda ka jira waxaa kamid ah age-ka oo macnaheedu ay tahay dadka waa kala duwan yihiin marka tusaale soo qaadan oo kale under 5 children ilmaha loo yaqaan 5 sano ka yar cudurra common ku ah dabcan markuu qofku weynaadana kadalika oo 70 oo ama uu ka badan yahay idan sidoo kale cudurra common ku ah markuu dhalinyarada uu yahay cudurra common ku ah marka age-ka waxay noqonaysaa waa variable oo markasta qofka xilligu jiro ama da'du jiro waxa jirayo waxyaabo common ah oo marka jiri karo inkastoo difaaca jirka uu kala fiican yahay stages of life nolosha inta noolnahay oo heerarkeeda kala duwan haddana markasta waxa jiri karo waxyaabo gaar ah sex waa kamid ah loo yaqaan oo ah jinsiga qofka uu yahay male and female cudurrada qaarna haweenkay ku dhacaan qaarna ragay ku dhacaan waxaan naqaanaa oo kaleeto wax loo yaqaan cudurrada haweenkay common ku yihiin oo ragga lagu ma arko gaar ahaan xubnaha taranka cudurrada ku dhaco ilma galeenka oo kaleeto raggana waxaa jiro prostate glandiga oo qanjirka ragga oo spermka samaysankiisa door ku leh ayagana markay ka jiradaan oo kaleeto waa cudur dabcan prostate-kaas ragga gaar u ah ethnic group jiri karo dad isir ahaan meel ka soo jeedo cudurro ay ku badan yihiin ama race wax loo yaqaan dadka meesha ka soo jeedaan tusaale waxaa la sheegaa black americanska
inuu ku badan yahay hypertensionka marka loo fiiriyo white Americans marka loo fiiriyo waa isla Mareykankii hal environmentii joogaan haddana ethnicity wax loo yaqaano ama isir ahaan qofka meeshu ka soo jeedo waxay door ku yeelanaysaa dabcan dhacitaanka cudurka marka qofkii waxa uu qaybin hadda qayb daada ah qayb jinsigii ah oo male and female ah qayb ethnic group ama race loo yaqaano daada marka uu imaano age is the most important determinant among personal variables daada waxay ku jirtaa waxyaabaha ugu daran oo go'aamiyo qofka inuu cudur ku dhaco ama inuu ku dhicin sida waxa kamid ah tusaale measles affects children jadeecada waxay ku dhacdaa ilmaha marka loo fiiriyo dadka waaweyn loo fiiriyo qof weyn jadeecada ku dhici kartaa laakiin probability-ga ihtimaalka ay ku dhici karto waa yar tahay jinsiga marka uu imaano waxa jiro some disease which are common among females cudurro waxa jiro caan ku ah haweenka tusaale waxa kamid ah breast cancer kansarka naasaha ku dhaco waa cudur haweenka gooni u ah hadda meesha haweenkaasi gooni u soo qaadanay laakiin male-kana tusaale hore u soo qaadanay qanjirka prostate-ka haddii ragga ay ka jiradaan oo kale waa yeelada ah ayagana waa cudur ragga gaar u ah haweenka aan ku dhicin qanjirkaas maadaama aysan lahayn ethnic group or race waxa loo yaqaanaa man disease liver markedly frequent cudurrada qaarkood waxay ku kala duwan yihiin soo noqoshada waxay ku kala duwan yihiin wax loo yaqaan severity-ga halisnimada both in different racial and ethnic group anaga u fiirinayno isir ahaan dadka meesha ka soo jeedaan oo group kasta waxa ku badan waxyaabo gooni ah yaa mostly ku badan xitaa haddii hal environment ay wada joogaan other personal variables waxyaabo kale oo shakhsiga laga fiirinayo waxaa kamid ah there are also other personal variables waxa kale oo jiri kara waxyaabo kale oo isbedelayo oo qofka ku dhici karo that should be considered during the epidemiologic study kuwaas oo muhiim ay tahay inaad tixgelino marka sameynayno daraasadaha la xiriira epidemiologiga kuwaasna waxaa kamid ah social classka waxa loo yaqaanaa bulshada heerarkeeda for example bulshooyinka qaar adduunyada ku nool waxay leeyihiin upper class middle class iyo lower class kuwa sare bulshada tagay oo taajiriin ah dadka isku meel aysan ku noolayn gawaari khaas wato dabcan noloshooda gooni u tahay unique u tahay qolay waxaa jira middle class ah oo dadka dhexe ah oo iska shaqaysto iska nool noloshooda dhexaad ay tahay iyo qoliyo fuqara ah oo masaakiin ah oo loo yaqaan lower classka marka waxaan rajeynaa anaga hadda Soomaali aan nahay malihin wax loo yaqaano social classeska waa nagu yar yihiin oo laga yaabaa nooca ma inay wax un ka jiraan dad lacag haystana ay jiraan ilaahay hanti u siiyay dad masaakiin ah oo nolosha la daala dhacayo haddana faquuq ma jiro oo kala sarayn ma jirto oo dadka inta badan hal magaalo ku wada nool yihiin joogo iska caadi religion marka fiirino dawri ku leedahay wax loo yaqaan personal variableska diinta islaamka xaniifka ah dabcan waxyaabo badan oo waxa jirto oo ina amartay kumanaan sano ka hor oo ay kamid tahay nadaafadda oo kale cudurrada ka dhasho gudniinka oo kale oo ragga la gudo oo wasakhdii oo gali lahayd xubnihii taranka cudurrada ay ku faafi lahaayeen oo kale dawri idan ku leedahay dabcan waxa saameyn ku leh shaqada qofka uu ka shaqeeyo dadka badan ka shaqeeya meelaha sawaxanka badan matoorada ama ka shaqeeyo kale meelaha shamiitada bakhaarada ama ka shaqeeyo shirkadaha sigaarka sameeyo kale waxa soo dhan dabcan shaqada qofku ka shaqeeyo waxay saameyn ku yeelanaysaa wax loo yaqaan caafimaadkiisii waxa saameyn jiri karo marital status wax loo yaqaan oo xaalad ijtimaaci qofka ama xaalada bulshada qofku ku sugan yahay sida waxa kamid ah cudurro waxa jiri karo dadka single-ka u badan oo aan guursani iyo cudurro badan dadka married-ka ah marka meesha safarqiya ka imaanay idana environmental exposure jiri karo waxyaabo deegaanka ayagana ka imaanaa dadka ay la kulmi karaan gabigooda marka waxa leenahay waxa loo yaqaan waa personal variableska oo groupkii labaad marka soo gaabina marka personal characteristics in describing disease occurrence dhicitaanka cudurka marka qaaxeeno shakhsiga waxa ku soo gaabinayna afar qodob qodobkooda waxa loo yaqaan natural characteristics of people dadka asal ahaan wax ay yihiin hadaynu soo aragnay sida da'da ay jiraan oo kale qofka genderkiisa marka la fiiriyo male and female wuxuu yahay ama ethnic groupkiisa saddexdooda hal qodob oo bixinayna loo yaqaano natural characteristics of people dadka asal ahaan ama dabiici ahaan wax ay yihiin oo macnaheedu iska bedeli karin acquired characteristics jiri karo wax loo yaqaano oo kuwa la kasbada ah oo dabiici aan ahayn kuwaas waxaa kamid ah marital statuska qofka duu single ahaan jiray oo cudurrada infectious gaar ahaan UTI-ga uu ka fiyooban jiray markuu guursado waxa laga yaabaa inuu isku arko cudurrada UTI-ga ilaa sababtoo ah ama gabadha qabto ama asaaq qabo ama contactigii dhexdooda ka dhacayay yaa sahlay wax loo yaqaan in cudurkan uu dhaco marka xaaladda markaas uu ku sugan yahay acquired-ka ah
waxay door ku yeelanaysaa qofkii inuu infection ku dhaco haddaysan si dhaqso iskaga daaweynin oo aysan la tacaalin waxaa kaloo ka mid ah difaaca xaaladiisa immune system wax loo yaqaan xaalad difaaca jirka saameyn ay ku leedahay waxaa kaloo saameyn ku leh acquiredka nutritional status xaaladda nafaqada qofka heerkiisa nafaqada jirkiisa si nutrientigii muhiimka u baahnaa inuu helo in kaleeto waxaa saameyn ugu yeelanaya wax loo yaqaan religion oo diintii ah beliefiska caqiidada aan leenahay saameyn ugu yeelanaysaa waxyaaba waxaa jiro dadka qaar oo islaamka aan ahayn diin ahaan ay haysta sida qolyaha kristanka oo kaleeto ama qolyaha farcaas leh oo macnaha gaalada la isku dhaho waxaa laga yaabaa beliefs inay leeyihiin haddii waxaas ay sameeyaan oo kale ama waxaas ay cunaan inay wax ka faa'iidayaan bal khasaare iyo dhibaato ay kala kulmayaan marka diinta qofka waxa xakameynaysa waa dabar oo markuu muslim yahay qofkii wax badan oo loo diiday jiro ilaahay xikmad ogiyo noo diiday dabcan marka diinta waa xakameyn oo qofkii la xakameynayo qofka hadduu bilaadiin noqdana wuxuu rabo isticmaala kadibna saameyn iyo caafimaadkiisa ku keenaysaa waxaa kaloo ka mid ah educational status xaaladda waxbarashada qofka uu ku sugan yahay idana saameyn ay ku leedahay waa acquired qofka markuu wax barto xataa hadduusan caafimaad baran xataa qof wuxuu noqonaa ogaalkiisa macnaha awareness-kiisa marka la fiiriyo uu fiican yahay wixii loo sheeg qaadanayo wax badan baari karo wixii kasal gaari karo oo qof la qancin karo noqonaa ugu yaraan activitieska saameyn ugu leeyihiin waxyaabaha aan sameynayno sida occupationalka shaqooyinkeena leisure activities wax loo yaqaanaa jiro markaan nasiinada sameynayno ama xilliyada fasaxa aan leenahay waxyaabaha aan ku mashquulno leisure timekaas door ku leeyahay in cudur u dhaco ama caafimaad inaan helno waxaa saameyn ugu leh use of alcohol and tobacco isticmaalka alcoholka iyo tubaakada ayagana dabcan ama sigaarka ama tubaakada waxay doonto ahaatee caafimaad darida door weyn ay ku leedahay condition in which they live qofka sidoo kaleeto xaaladdu ku nool yahay sida waxaa ka mid ah socio economic statuska xaaladda dhaqaalaha access to the health care isticmaalka adeegga suuq qofkan u isticmaalo sida hooyada ACga ay ugu xirantahay kaleeto oo antenatal care-ka macnaha waxay keenaysaa hooyada in la socdo xaalkeeda BB-geeda markasta la jeegareeyo culeyskeeda la xaqiijiyo haddii preeclampsia ay qabto laga hortago inay eclampsia aysan ku dhicin wax badan waxaa jira marka qofka hadduu caafimaadka adeeg isticmaalo oo check up u sameeyo u ka hortagi karo afartan marka waxaa kaga bixinaa wax loo yaqaano personkii oo qodobkii ugu horreeyay ahaa oo ku saabsanaa descriptive-ka qodobka labaad waxaa loo yaqaanaa place waxaa loo yaqaanaa where the rate higher lower cudurka intuu ku badan yahay intuu ku yar yahay sida waxaa u fiirinaynaa geographical location of source asal jeermiska ama wasakhda meesha ka imaaday asal ahaan waa halkee geographically waxaa kaloo fiirinaynaa geographical location of reservoir waxaa loo yaqaanaa keediyaha badanaa marka la baranayo infectious diseaseska cashirkan kii ka horreeyay waxaa kusoo baranay wax loo yaqaano chain of infections waxaa ka mid ahaa qodob loo yaqaano reservoir oo loo yaqaano cudurka meesha uu ku keedsan yahay waxaa noqon kara cudurka wax keedayaashiisa bini'aadanka waxaa noqon kara xayawaanada waxaa noqon kara waxyaabaha aan noolayn ama si kooban waxaa dhihi karnaa waxyaabaha nool iyo waxyaabaha aan noolayn intaa waxay noqon karaan kuwa keediyaal ah the frequency of disease is different in different places soo noqoshada cudurka waa kala duwan yihiin adduunyada markii la fiiriyo bal xataa waddan gudihiisa waa ku kala duwan yihiin meelaha cudurka uu ka dhacayo waxaa laga yaabaa hal waddan in hal gobol ka mid ah cudurka uu kusoo noqdo halka kuwa kaleetana siif ay ka noqdaan marka faktoro dabcan waxaa jira soo noqoshada sahlayo ama diidayo the difference can occur because natural boundaries waxaa jiri kara marka dhicitaanka ama cudurrada kala duwanaanshiyahooda waxaa ugu wacan natural boundarieska sida waxaa ka mid ah mountain ranging sida buuraha kaleeto sida webiyahoo kaleeto ama waxyaaba loo yaqaano desertiga saxaraha loo yaqaano iyo wixii lamidka ahaa marka hadda waxaan naqaanaa meelaha soomaalida ay degto meelaha webiyada leh oo qoyaanka badanaa leh inta badan cudurraa ku badan sida malaria oo kaleeto mar kasta waa laga helaa halka meelaha qalalan oo dryga ahna cudurro kale ay ka jiri karaan oo korcuncunka ama cudurrada skiinka ama waxyaabaha lamidka ah marka dadka markaa fiirino markaa dabiici ahaan waxyaabaha ilaahay uu sameeyey usan bini'aadanka faragelinta ku lahayn sida buuraha badaha webiyada geedaha kulli saameyn ay ku leeyihiin wax loo yaqaano dadkii ay caafimaadkoodii area divine natural boundarieska waxaa loo yaqaanaa high or low frequency meelaha qaarkood cudurkooda zaa'id uu ku noqon karaa aad uu soo noqon karaa halka meelaha qaarkoodna cudurkii uu ku yar yahay uusan kusoo noqonaynin sababtu waxay tahay it is characterized by some particular environmental or climatic condition waxaa jiri kara sababo la xiriiro cimilada ama deegaanka sida waxaa ka mid ah temperature-ka oo heerkulka ah waxaa ka mid ah humidity wax loo yaqaano qoyaanka meesha waxaa ka mid ah rainfall meesha inuu roob ka da'o iyo in kale waxaa ka mid ah buuraha oo loo yaqaano altitude-ka waxaa ka mid ah mineral content of soil ciidda meesha ku jirta macdanta
meelaha qaarkood macdanta riij ay ku tahay oo tusaale Soomaaliya meelaha shidaalka ku jiro kale aad ay kulushahay marka loo fiiriyo meelaha shidaalka aan lahayn meelaha waxaa jira macdanta ay ku badan tahay kaleeto fluoride-ka dad waxaa jira Soomaaliyeed oo gobolada Soomaaliya ka mid ah degan oo ilkahooda dabar ay yihiin oo kale for example dabcan fluoride-kii yaa ku badan maadadii biyaha laga heli jiray oo ilkaha xoog siin jirtay ama ilkaha inay strong noqdaan sababi jirtay waxaa ka mid ah water supply meesha biyaha sida loo helo wixii la midka waxaasoo dhan waxay saameynayaan caafimaadkeena saameynaya haddii positive noqdaanna waa okay haddii negative noqdaanna saameyn nagu yeelanayaan for example malaria common lowlands malaria waxay caan ku tahay oo lagu arkaa meelaha oo godka ah ama meelaha macnaha aan taag ahayn halka relapsing fever cudurka loo yaqaano oo asana caanka ah wadamada deriska ah sida Kenya oo kaleeto asana sidoo kaleeto wuxuu ku badan yahay meelaha sarsare iyo ku badan yahay buuraha iyo meelaha taaga ah qodobka saddexaad oo ugu dambeeya waxa loo yaqaano time oo descriptive ka fiirin jirnay study of disease occurrence by time ina fiirin dhacitaanka cudurka anagoo waqti ka fiirinayno is basic aspect of epidemiologic analysis waa waxyaabaha ugu muhiimsan marka taxliilinayno epidemiologiga waqtiga ina fiirino occurrence is usually expressed as monthly or annual base marka waqtiga xisaabanayna waxa uu fiirinaynaa bil iyo waxa uu fiirinaynaa wax loo yaqaan sanad some disease occur periodically or cycle cudurrada qaarkood waxay u dhacaan xilli ama si wareeg ah macnaha sanadkii hal mar hal bil hal qaab ay u dhacaan cycle may be annual cycle wuxuu noqon karaa sanadle ama wuxuu noqon karaa some other periodicity ama wuxuu noqon karaa mid waqtiyeysan oo sanad ka yar oo kaleeto wixii la midka ah okay the most common type of periodic are relation to seasonal change badana kuwa waqtiyada leh badana waxay la xiriiraan seasonalka waxa uu naqaanaa xilliyada oo sanadku ka kooban yahay sida go'a dayrta jiilaalka iyo xagaaga afar xilli ayaa leenahay afarta xilli kiiba waa saddex bil ka kooban yahay waxaa jiri kara cudurro ama waxyaabo xilligaas u wato ama dabayl haddii noqoto cuduradii daafka iyo hirgibka faafaayo haddii roob uu yahay tusaale ahaan kaneecadii iyo wixii faafaayo iyo cuduradii feeraha ku dhici jiray neef mareenka marka xilli kasta wuxuu wataa duruufiisa gaarka wataa in relation to the change with a number of susceptible person in population gaar ahaan annagoo usii fiirinayno bulshada kuwooda nugul oo susceptible-ka ah susceptible-ka waxaa loo yaqaanaa dadka jilicsan dadka nugul oo difaacooda uu yaryahay ama da-dooda ay yartahay dee imiinkooda uusan majuur noqonin ama waayeelada ah ama hooyooyinka uurka la ah dadka noocaas oo kale waxaa noqonayaan dad susceptible ah malaria kaneecada waxay qaniintaa dadka kadib waxay xambaarsataa wax loo yaqaano plasmodium waxaana ka dhashay cudur loo yaqaano malaria one of the example of disease with seasonal periodicity malaria waxay ku jirtaa cudurrada badan ku dhici kara xilliyada where high peaks occurs in relation to the rainy season halka inta badan ay dhacdo xilliyada roobka uu da'o ama xilli roobaadka waxa uu naqaano endemic malaria badana waa epidemic ay noqotaa micnaha si ay u dhici jirtay ka badan kartaa mararka qaarkood gaar ahaan bilaha October iyo November wadamada qaarkood oo kaleeto deriskana Ethiopia kaleeto xilligooda waxaa ku aadan oo loo yaqaan October iyo November dabcan annagana xilliyo waxaa jirna ugu aadan sida April dhamaadkeeda ilaa May iyo June kaleeto when stagnant water bodies are convenient for the breeding the mosquito xilligaas markuu roobka da'o roobka wadooyinkii wuxuu dhigaa biyo xaafadihii wuxuu dhigaa biyo waxay sababaysaa marka meelahaas biyaha ay fadhiyaan waxaa ku dhalanaya kaneecadii kadibna waxaa aad u faafaya waxa loo yaqaano cudurkii ahaa malaariyada iyo faafaya okay depicting data by time waqtiga markaa fiirinayno xogta qaabka oo helayna waxaa ka mid ah what are the important time characteristics waqtiga markaa fiirinayno maxaa muhiim noo ah waxaa muhiim noo ah time exposure to risk factor risk factor-ka waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha dhacitaanka cudurka sahli karo oo fududayn karo marka waxaa fiirinaynaa waqtiga oo waxaan uga baxayna goormee waaye oo waxaan riski ay noqonayaan waxaa fiirinaynaa time of onset of health event wax loo yaqaano xilliga waxaan ay bilaabanayaan goormee waaye iyo special eventska waxaa jiri kara dhacdooyin gaar ah sida markay jiraan oo kale musiibooyinka oo loo yaqaan disasterska waxaa loo kala saaraa kuwa dabiici ah oo iska dhacaan oo rabaani ah sida duufaanta iyo dhulgariirka iyo wixii la midka ah iyo kuwa loo yaqaano man-made disaster kuwa bini'aadanka gacmahooda ay ku sameeyaan sida inay geedaha jaraan oo kaleeto oo meeshii dabayl ay noqoto lama degaan sida inay tusaale ahaan oo kaleeto webiyadii dadka aagooda degan inay soo furaan meelihii biyo xireenada ahaa oo kaleeto waxaas waxay noqonayaan marka wax loo yaqaano waa bini'aadanka wuxuu sameeyey waa musiiba dhaceyso
dadka qaar dhimanayo hantiya burbureys waa la qaxaa laakiinse bini aadamka iyo mas'uulka ah immunization campaign jiri karo talaalada kale marka sameynayna marar qaar waxa qaadan campaign oo sanadkii xilliye kamid ah la qaadaa si cudur gaar ah loo soo cirib jaro ama cudurrada faafaayo ilmaha ku dhaco oo dilo qaarkood in la xakameeyo waxyaabaha la xiriira waqtiga sidoo kale waxaa kamid ah secular change wax loo yaqaano oo long term loo yaqaano point epidemics oo loo yaqaano short term waa cudurrada waqtigooda u gaaban yahay cyclic trend kuwa soo noqon sanadkii hal bil ka yaqaano oo sanad kasto markii bisha la gaaray uu soo noqonaha oo cycle dabcan wuxuu ahaa wareeg waa meeshuu ka bilowdo ku dhamaada seasonal variation ay jiri karo wax loo yaqaano oo ah wax oo season ah sida bilihii aan kasoo sheekeynin hadda xagaagii iyo jiilaalkii iyo dayrtii iyo wixii la midka ahaa okay secular change maxaa la marka mid u qaada dhigana qodobadii hadda secular change waxa loo yaqaanaa temporal variation occurs slowly over the long period of time waa cudur dhici kara kaasoo marka hore si tartiib ku bilaaban kara laakiin si waqti dheer uu jiri karaa sida waxaa kamid ah longer than 1 year hal sano wax ka badan oo sii jiri kara used to assess prevailing direction of disease occurrence inta badan waxaa loo isticmaalaa inaan ku qiimeyn karno ama inaan qiimeyn sameyn karno dhicitaanka cudurrada markay dhacayaan oo kaleeto inaan u adeegsano point epidemic oo short term ka ahaa badanaa wuxuu dhacaa over limited time frame wuxuu dhacaa waqti kooban sida waxaa kamid ah hours uu jiri karaa days uu jiri karaa maalmo ah weeks uu jiri karaa asbuucyo ah ama months waa wax un hal sano ka yar asigana inta badan waxaa loo isticmaalaa short term exposure or disease with short incubation period waa cudurrada waqtigooda u gaaban yahay ama cudurrada xilli huuriskooda xilliga jirka isku qarin karaan uu yar yahay waxaa loo yaqaanaa point epidemics inta badan ama cudurka hadduu dhaca xataa intuu sii jiri karo ayaa yaraanaysa hergabka kale markaa fiirino qofka hadduu ku dhaca xataa hadduu u badato wuxuu hayn karaa asbuuciyo wixii kasii yar cyclic trend kusoo haray waxaa loo yaqaanaa mabiyada long short wuxuu noqon karaa mid waqtigiisa uu dheeraan karo ama wuxuu noqon karaa dhacdo xilligeeda uu gaaban yahay some seasonal while other cyclic due to other factors waxaana saameyn kara waxyaabaha qaarkood sida waxaa kamid oo kaleeto immigrationska cudurrada dadka qaxootiga ku dhaco barakacayaasha ah school years markaa fiirino intuu iskuulka u furan yahay oo kaleeto maadaama ilmo fara badan meesha isku imaanayaan mid kasta wuxuu qaban aan la ogeyn dabcan faafitaankii cudurka saameyn uu ku yeelan karaa iyo military deployment wax loo yaqaano dadka ciidanka oo kaleeto ah gaar ahaan dadka oo loo yaqaan retireka oo howlgabka ah qofkii maadaama uu shaqayn jiray awal shaqo xoogan u qaban jiray maadaama uu fariisto saameyn ay ku keenaysaa seasonal variation waxaa loo yaqaanaa can be used to suggest possible etiology badanaa waxaa keeni kara waxyaabo qaarkood sababo gaara keeni kara oo possible ah seasonal variation can be seen some disease or condition prevailing with the calendar year waa cudurro badanaa seasonka la xiriiro calendarka khuseeyo inta badanna sanadkii waxay ka dhacaan bilo la yaqaano oo cayiman oo markasta ay soo kacayaan sanadkas markii la gaaro epidemiologic study design waa ciwaanka noogu dambeeya cashirkeena maanta epidemiologic study designka waxaa leenahay waxaa loo yaqaanaa waa arrangement of condition for the collection and analysis of data waa xaalad aan kusoo ururinayno xogtii aan ku taxliilinayno arrintaa waxay horseedaysaa wax loo yaqaano the most accurate answer to questions inaan helno su-aalihii dadka aan weydiinay inaan jawaabo sax ah ka helno in mind and the most economical anagoo ka fiirinayno wax loo yaqaano qarashka iyo resource ku baxaayo iyo qofka dabcan aqoontiisa inta uu kari karo inuu noo jawaabo study designka marka waa baran doono soo detail ah laakiin waxaa loo yaqaanaa naqshada ama qaabka weyga aan raaceyno markii aan sameynayno wax loo yaqaano epidemiologic study aan sameynayno study design characteristics include markaa baareyno study designada waxaa ka fiirinayna type of data xogta nooceeda waxaa fiirinayna type of comparison isbarbardhigga aan sameynayno waxaa fiirinayna type of setting or unit analysis using applicationka ama xogtan inaan taxliilino qaabka aan u isticmaaleyno waa qaabkee okay soconna marka waxaan dhahnay study designkaas marka nooca ka fiirinaynaa comparisonka iyo habka aan u isticmaalnay designkaas iyo applicationka aan dooranay inaan xogta ku taxliilino selection of study design markaa dooranayna naqshadaha cilmibaarayaasha ay isticmaalaan markasta waxay ku xiran tahay depending on existing state of knowledge about the problem aqoonta u leenahay aba cilmiga iyo khibradda u leenahay dhibaatada taasoo inta badan aan daraasaynayno ilaa waxaa baareyno waa inaan naqaano waayo aqoonta u leenahay iyo qabiirnimada waxay keenaysaa inaan doorano design ku habboon problemka aan raadinayno waxaa kaloo fiirinayna different types of questions may be asked which require different study design su-aalaha qofka aan weydiin xataa marka loo fiiriyo su-aalo kasta waxay leeyihiin design ku habboon oo markaa su-aalaha qaar dadka la weydiinayo waxaa jiro
design ku ah appropriate oo ay tahay in la qaato designada ugu caansan oo kuwaana designiska waxaa loo kala saaraa descriptive iyo waxaa loo kala saaraa analytical descriptive-ka wuxuu sii noqonaa wax loo yaqaano correlational and cross-sectional طبعا descriptive-ka maadaama aan kusoo baranay person place iyo wixii marka waxaa leenahay waa si detail wixii in loo qeexo gudaha loo galo nooca marka waxaa jira loo yaqaano cross-sectional oo inta badan problemka xilligaas bulshada ay qabaan in laga baaro waqti cayimana laga baaro bulsho cayimana laga baaro waxaa loo yaqaanaa cross-sectionalka correlation waxaa loo yaqaanaa waa tii comparisonka oo kaleeto ah inaan laba group fiirino ama waxaan iyo waxaan maxaa ka dhaxeeyo xiriir ka dhaxeeyo muxuu noqon karaa oo kaleeto case report and case serious waxa la hayaa jiro case report iyo case serious badanaa waxaa loo isticmaalaa oo individualka gaar ahaan markii bukaan istaalka jiifo daawo aasiinaynay uu raysan waayo oo kaleeto in bukaankii xaalkiisii cilmi baaris ku sameynaa daba galno waay uu raysan waayo qofka maxaa ka khaldan waxaa kaloo jiro qaybta labaad oo analyticalka waxaa loo kala saaraa observational iyo interventional observational iyo interventionalka waa labada qayb ugu muhiimsan dabcan mid kastana wuxuu sii yeelan doonaa faracyo sida wax loo yaqaano case and control observational ka farcamayo case and controlkan waxaa loo yaqaanaa dad cudurkii qabo exposed ah iyo dad cudurkii aanan qabin oo non exposed ah inaan isbarbardhig ku sameyno kaleeto kuwa waxaa jira la xiriir experimental tijaabo la xiriiro waxaa jira kuwa ka horti loo yaqaano oo bastigii iyo futurkii wixii isku raadinayo waa baran doonaa marka qodob kasta qodobada meesha ku qoran ka mid ah soo detail noo imaan doonaa marka dooranayna state design-ka waxaa ka fiirinaynaa shuruudahan kow state of knowledge about the problem aqoonta u leenahay mawduuca maxaa ah problemka laba waxaa ka fiirinaynaa type of information you wanted to obtain xogta inaa hesha u baahan tahay maxay tahay nature of the problem and its environment problemka asalkiisa muxuu yahay rootkiisa iyo deegaanku ka dhacay resource available for the research daraasadan oo epidemiologic study-ga ah sameynayno resource-ga oo hayna maxaa waay sida xooga qalabka lacagta iyo wax alaal wixii markii cilmi baaris la sameynaa la isticmaalo knowledge and creativity of the researcher kartida iyo aqoonta uu leeyahay cilmi baaraha sample to be taken tirada dadka aan ka soo xulanayno sample waxaa loo yaqaanaa bulshadii qayb ka mid inaan soo xulano si markaas matalaad u helno bulshada inteeda kaleeto macnaha wakiile ay ugu noqdaan waxa ay inoo sheegaan macnaha bulshadaas noo qabaan ay ka dhigan tahay marka qaabka oo dooranayno maadaama matalaal ay yihiin methods of that analysis to be used inaan fiirino marka xogta taxliilinayno qaabka isticmaalayna ama chart isticmaalayna ama table isticmaalayna macnaha wayga isticmaalayno purpose of epidemiologic research hadafka ay ka leenahay cilmi baaristan gaar ahaan daraasada epidemiologiga maxay tahay iyo sidoo kale waxaa ka mid ah access to the study subject in waxaan baarayno ay noqdaan wax shaqeynayo oo logic ah oo suuragal inay ahaadaan عشر كيني شناد مركمات بالمولوجي ما شكوا كيسانينا وما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته